السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمار والسلام يا خير تقيمة يا شرفت لك وحنا شنكيغا وكرتينوتشي كسو دواada muuqaal cusub muuqaalkan cusub waxaanu kaga hadli doonaa muuqaalkii hore ee ku dhamaystiri doonaa oo wax ku saabsan yahay muuqaalkii hore ku saabsanaa sidee ayaad uga samayn kartaa website maalintii $200 ama $700 iyo wax ka badan ba sidee uga samayn kartaa muuqaalkii ahaa ayaa bacdul ikhwa ay ka kasaaday iga soo weydiiyeen isla markaana waxaan jeclaystay inaan su'aalahooda uga soo jawaabo oo aan tixgelinaya asxaabta qaar waxay dhaheen lacagtii shaqaysanay balse si wala baxnaa ay qarweydiyeen qaarna waxa asxaabta ku adkaatay sidee diiwaangelinta ama registerka sida isu diiwaangeliyo oo website-kii aanu ka hadlanay sidee iska diiwaangelinaya qaar asxaabta weydiiyeen ama adoon is diiwaangelin nasoo tus ayay dhaheen bacdul ikhwa marka muuqaalkan ayaan ku eegi doonaa walaalihii soo weydiiyey waa kan muuqaalka ay weydiiseen insha Allah waxa kaga gaadho waan doonayaa inaan idin tusiyo kusoo dhawaada muuqaalka oo dhammaystiran fadlan soo furo Chrome-kaaga marka soo furitid website-kii ayaan tusayaa website-kii ayaan gelinaa ama anakan register-gareynta ayaan tusayaa su'aasha hore waxay ahayd sidee adan register-gareyn isla markaan ku biirino soo duubaya ku saabsaneed marka website-ka markaad ku qortid Chrome-ka oo ka ahaa website-ka magaciisu ahaa allworkjob kadib waxaad dooranaysaa halkay ku qorantay allworkjob.com ay ku qoran tahay kadib marka halka dooratid sidan uu kugu soo baxo qaybtan uu ku socon qaf furuuca markuu sawiran yahay ama ay ku qoran tahay login oo ku qoran tahay xaqiiso already register login here macnaha qofkii hore soo diiwaangeliyay sida anagoo kale ay halkan taaban karo halka geli kara balse haddaan adigu hore soo diiwaangelin maxaa sameynaysaa bartan ku xiga ama option-kan aad tagaysaa option-kan waxaa ku qoran register ayaa ku qoran ama halkii la isku diiwaangelinayo weeye bartii la isku diiwaangelinayo weeye oo ku qorantay new user register here halkan ka iska diiwaangeli hataa cusub mid ama cusub tahay halka iska diiwaangeli marka halkan aad ku dhufanaysaa register ayaad ku dhufanaysaa kadib markaad ku dhufatid qaanadan ayuu kuu soo furayaa oo sidan ayuu kuu soo furayaa marka halkan waxaad gelinaysaa email-ka aad doonaysid inaad ku isticmaashid email-ka markaad la soo gelisid kadib halkan waxaad gelinaysaa password-ka halkan password-ka markaad gelisid halkan waxaad gelinaysaa password-ka laftigiisa aad ku celinaysaa kadib halkan ayaa soo baxaysaa halkan hoose waxaad gelinaysaa xuruufta uu halkan ku soo qoraayo halkan ay ku qoran tahay fill code here waxaad gelinaysaa xuruufta ay ku qoran tahay halkan xuruufta halkan ku qoran ayaad gelinaysaa kadib markaad gelisid submit ayaad dhahaysaa su-aasha waxaa filaya inay ku caddaatay ama aad fahantay sidaas hawsha yar weeye haddaan ka noqdo oo anigu sidee lacagtii aan samaystay ula bixi karaa ka jawaabo aan isku dayo anigu login ayaan dhahayaa oo register mar hore soo register-gareeyay dabeetana waan gelayaa dashboard-kayga ayaan soo furaya ama khaanadaydii ayaan soo furanayaa khaanadayda markaasaan igu soo furanto lacag ayaan shaqaystay lacagtaana waxay ahayd $2 ayaan shaqaystay $2 halkan kaaga muuqda oo kuwan $2 ayaa igu jira marka $2 sidee ula baxaa ama halkee kala baxaa hoos ayaad u wadaysaa kor ayaad u wadaysaa halkan ku soo baxaysaa ama khaanadan ayaa ku soo baxaysaa khaanadan qaybteedan koobaad halka copy paste waxaan ka shaqeeyay 2 mar ayaan ka shaqeeyay 2 maro min 25 waa $1 halkan WhatsApp joogna 2 jeer ayaan ka shaqeeyay oo min 25 ayaan waa $1 totalka marka la isku geeyo maxay noqonaysaa $2 ay noqonaysaa haddaba waxaan doonayaa lacagtan inaan la baxo lacagtan $2 ee halkan yaala sida wala baxaa waxaad ku dhufanaysaa halkan ay ku qoran tahay how to withdraw payment ayaad ku dhufanaysaa halkan markaad ku dhufatid qaybtan ama dashboard-kan ayuu kuu soo furayaa dashboard-kan halkan ugu hooseysa ama halkay rood furaysaa kadib waxaad ka soo codsanaysaa halkii aad lacagta ku dirsan lahayd PayPal miya Western Onet payment required bank transfer media pinor waxaasoo dhan marka aniga hadda PayPal ayaan codsanayaa PayPal ayaan ku dirsanayaa lacagtayda PayPal
haddaad lahayn waad samaysan kartaa wax fudud. Bible marka soo codsatid qaybtan sare waxaad gelinaysaa magacaaga oo dhammaystiran Abuukar Media hadda aniga igu qoran magaca barta markaan geliyo barta waxaan gelinayaa adreskii waxaan gelinayaa dada sheekh adreska dada sheekh madar ayaa igu qoran adreskana marka saa u geliyo waxaan tegayaa emailka ayaan gelinayaa emailka markaan geliyo emailka markaad gelisid halkan waxaad gelinaysaa phone numberkaaga ayaad gelinaysaa lambarkaaga ayaad gelinaysaa kadib marka sidaas halkan waxaad ku qoraysaa magacaad ku qoraysaa waxaad oranaysaa Bible account ayaad dhahaysaa halkan ama mar walba waxaad ku gelisay meeshaad dooratay Bible account markaad tiraahdeed waxaad dhahaysaa submit lacagta saas u diraysaa kadib lacagta sidaa u dirtid lacagta marka sidaa u dirtid halkan maxay ku dhaheen within 24 saacadood ilaa 48 saacadood kadib ayaa lagu soo jawaabayaa ama lacagteed helaysaa oo arrinkaaga lagu qabanayo checkinga lagu sameeyo please inbox or spam folder within 24 to 48 hours macnaha halkan wuxuu ku leeyahay 24 saacadoodna sug iyaga email bay ku soo dirayaan message ay ku soo dirayaan fariin ay ku soo dirayaan emailkaaga tigaysa kadib Google Bible-kaaga ay lacag ku soo dhacaysaa sidaan lacagtaad wada helaysaa marka muuqaalku intaas ku saabsanaa insha Allah waxaan maray inaad fahmi doontid haddaad fahmin xagga hoose qaybta hoose igu soo qor commenti oo waxaan sii sharaxo haddaad u baahan tahay